ay Kuradam wala Kurabakhaso sidoo kale shalay banaanbuxu wuxuu isagana ka dhacay inkastoo muddo gaaban ahayd magaalada Goday haddaba dadkani waxay saluugsan yihiin sida loo qaybiyay degmooyinkii cusbaa ee 99 degmaha iyo waliba 22 council ama ismaamul magaalo ay saluugsan yihiin qaabkii loo qaybiyay Cabdinaasirow inta ay socdeen dibadbaxyadan wax rabshado ah oo la soo sheegay ma jiraan wax dhimasho kama dhicin laakiin dhaawacyo aan aad u cuslayn ayaa ka dhacay dad la xidhana ma jirin sidii la sheegay laakiin dadku aad waxay u qeylinayeen in shaqaalaha dawladda gaar ahaan dadka loo yaqaan dib u curashadu ay ka baxaan magaalada meelaha qaarkoodna militariga ayaa soo fargeliyay sida degmada Baarey oo kale oo kula dardaarmay si nabadgelyadu ay u xasisho in shaqaaluhu ayna wax dhibaato ah sameeynin haddaba wax dhibaato buuran oo rabshado wata oo ama dil ah ama dhaawacyo culculus ah ilaa haatan kamayna dhicin mar haddii dadweynaha ay cabanayaan dibadbaxyada ay jiraan dawladana ay tahay mid aan sixisay deegaanadaas cusub maamulka miyuu ka hadlay cabashadaas iyo waxay ka sameynayaan ilaa haatan xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalidu mayna ka hadlin haday telefishinkeeda noqon lahayd iyo raadiyaha iyo waliba website-yada ay iyadu maamusho dawladdu ay maamusho kamayna hadlin waxaana isku dayay in badan inaan la hadlo mas'uuliyiinta xukuumadda laakiin arrintaas way ka wada gaabsadeen dadka aan ismaqalay Cabdinaasir Sheekh Maxamed